dhulweynaha Soomaalidu ay degan tahay aad buu baaxadiisa u ballaaran tahay wuxuuna ku yaalaa mandaqada waqooyi bari ee qaaradda Afrika. Waa gees fiiqan oo jasiiradda Carabta xiga. Waa dal aysan kala dhantaalin ama aysan kala qoqobin bad iyo buur. Warbixintan waxaan si kooban ugu gudmari doonaa tilmaamaha iyo macluumaadka muhiimka ay ku saabsan dhulweynaha Soomaalidu ay wada degto. Ku soo dhawaada Fagaara Media, magacayguna waa Xasan Cismaan. aan ku hormarno tilmaamaha badda. Soomaaliya waa dalka ugu xeebta dheer wadamada qaaradda Afrika. Xeebta Soomaaliyeed dhererkeedu waxa lagu qiyaasaa 3500 kilomitir. Dhanka waqooyiga waxay kaga eg tahay suriyada loo yaqaan Baab al-Mandab oo loo yaqaano marinka koonfureed ee badda cas. Waxayna badweynta Hindiya kaga darantaa xagasha Raas Caseer oo loo yaqaan Cape Gardafu. Dhanka koonfur galbeedna badweynta Hindiya waxay ku eg tahay Raas Kamboni oo gobolka Jubbada Hoose dhacda, xuduudna la leh NFD Kenya. Raas Caseer oo caalamka ay ku magacaabaan geeska Afrika waa meesha biyaha labada badood isaga milmaan. Waa badda cas iyo Indian Ocean-ka, iyadoo hardanka mawjadaha ay dhaliyaan hirar ku socda xooli iyo xoog dheer leh. Waayadii horena waxay halis ay gelin jireen maraakiibta. Tiro aan yareen oo maraakiibtaasi ka mid ahaa ayaa ku qarqamay halkaasi. Sidaas darteed sabankii lagu safri jiray doonyaha iyo maraakiibta aadka u yaryar, badmaaxyadii hore ee geeska dhuuban ee Raas Caseer waxay ku magacaabi jireen xabaashii maraakiibta. Dhanka bariga markaan eegno, walow shisheeyaha dhulka Soomaaliyeed ay ku sheegaan lama degaan xigeen, haddana waa dal sandaaqa xoolaha ku wanaagsan. Maxaa yeelay waa cimilo dhexdhexaad oo aanan kuleyl iyo qabowna saa'ida midna aanan lahayn, waxayna ku habboon tahay caafimaadka nafleyda. balse haddii xaaladaha hadda taagan aanan waxba iska bedelin, dhulka Soomaalida mar dhow wuxuu noqon doonaa saxaro lama degaan ah. Sababtoo ah waxaa isbiirsaday laba arrimood oo halis ah. Midda koowaad, 80-meeyadii kadib hay'adaha huwan magaca samafalka ayaa geeska Afrika guud ahaanba geeyiga Soomaalida ay ka mid tahay ku firdhiya geedka loo yaqaano geed Yuhuudi oo reer miyiga ay u yaqaanaan kaligii noole ama cali garoob ama garanwaa, reer magaalkana ay u garan yaqaanaan Rambo. Midda labaad, sabankii dagaaladii sokeeye ee dowlad la'aanta waxaa soo ifbaxay rag tujaar ah oo markaasi ka ganacsada dhuxusha, waxayna keeneen dalka makiinado casri ah oo dhirta lagu gumaadayo. Dhanka webiyada, waddanka Soomaaliyeed waxaa dhanka koonfur ka mara laba webi oo kala ah Jubba iyo Shabeelle, wuxuuna unugooda ama ciraqooda uu ka soo burqamaa buuraha Itoobiya. Webiga Jubba oo ka ballaaran kana biyo badan kan kale wuxuu badweynta Hindiya kaga darmaa tuulada lagu magacaabo Goobweyn agagaarka Kismaayo. Webiga Shabeelle walow uu ka baaxad yar yahay, haddana waa uu ka manaafacaad badan yahay webiga Jubba, waayo jiinka webiga Jubba oo u badan dhul cusbooley ah ka sokow waa mool gebiyo dhaadheer leh oo aanan laga baaqsan karin in loo adeegsado matoorada waraabka, halka jiinka webiga Shabeelle uu yahay dhul bacrin ah oo waxaa u sii dheer meelaha qaar faafka biyaha ayaa matoor la'aan wax lagu beertaa. Webiga Shabeelle wuxuu yaacda ahaan ama faaf ahaan ugu dhammaadaa tuulada Hawaii oo ka tirsan degmada Sablaale. Dhanka buuraha, waqooyi waxaa ku yaala silsiladaha buuraleyda lagu magacaabo Golis Range, waxayna geeska gees ku tiirsan yihiin jiidda badda cas. Silsiladaha buuraha Golis waxay u sii gudbaan Eritrea ilaa iyo Suudaan. Buuraha Golis oo ku meersan badda cas waxay isdaba taxan yihiin ilaa iyo geeska Raas Caseer, waxayna ku libdhaan badweynta Hindiya. Buurahaasi oo muuqaalkooda uu kala duwan yahay waxaa sababay kala duwanaanshaha ama saamaynta cimilada deegaanka. Marka laga reebo buurta Gacan Libaax iyo Tansheeq oo gobolka Waqooyi Galbeed iyo buurta Daalo oo gobolka Sanaag, dhirta ka baxda ay tahay cagaar dalxiiska ku wanaagsan. Inta kalena waxay u badan yihiin qarar fiiqan oo dhagaxaan shilmay ay ka buuxaan, wax tigaad ama daaq ahna aanan ka bixin. Figta ugu dheer waxay ku taallaa buurta Suurad ee gobolka Sanaag, taasoo dheeraanteeda caadka uu ku shareermay, waxaana lagu qiyaasaa 8,000 oo cagood. Astaamaha dhulka Soomaalida ay ku baahsan tahay muuqaal ahaan qaabka juqraafiga waxaa loo yaqaan jasiirad xigeen Peninsula. Xagga waqooyi galbeed cirifka xuduudda wuxuu ku eg yahay herada Hawaas ee Itoobiya. Dhanka koonfur galbeedna cirifka xuduudda wuxuu gaarsiisan yahay webiga Tana River ee Kenya. Guud ahaan isku celceliska badka dhulka Soomaalida ay degto waxaa lagu qiyaasaa 1820 kilomitir oo square, balse haddii si gaar ah loo qeexo dhulkii Jamhuuriyadda Soomaaliya loo aqooni jiray muuqaal ahaan qaabka juqraafiga waxaa lagu matalaa lambarka 7. Dalka Jamhuuriyadda Soomaaliyana wuxuu la eg yahay ama uu ka sii ballaaran yahay isku darka Talyaaniga iyo Faransiiska, waxaana lagu qiyaasaa 640,000 kilomitir square. Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya muuqaal ahaan iyo cimilo ahaan waxaa loo qeybiyaa
8 qaybood oo kala gedisan. xeebta waa dhul badda ku tirsan, waa bacaad xaani ah oo aanan baad waxtar leh aysan ka bixin, milixda ama cusbadana ay ku badan tahay darteedna waa la diiqaa oo waxay ku dhararsan tahay inta u dhexaysa biyaha badda iyo qawiga beriga uu ka bilowdo. deex waa dhulka carada cad leh ee ku tirsan xeebta, kuleelka milixda ama cusbada iyo roobabka oo aadka ugu yar darteed dhir dhaadheer kama baxdo, waana bannaan bidhaan oo laga arki karo ilaa iyo 100 tilaabo, waxaana ka baxa noocyada kala duwan ee geedaha aadka u gaagaaban. guban waa dhulka u dhexeeya buuraha Golis Range ee badda cas, cimilo ahaan waxay u dhow yihiin deexda koonfurta, heerkulkooduna waa mid aad u sareeyo, waxaana ka baxa geed abaareedka dhaadheer ee quraca iyo kulanka. waxaa kaloo ka baxa geedka gaagaabka ay ka mid yihiin daluugta iyo xaruunka iyo cawska dixiga ah. waa dhul oomana ah, biyaha waxaa laga helaa moqorada ku yaala meelaha godan ee dhagaxaanta. riyaha ayaa ku dhaqma, laakiin nugulka iyo geelu waa ay ku yar yihiin. oogo waa dhulka ka durugsan badda cas iyo buuraha la jeedo, waa taag sare oo cimilo ahaan hawadiisu ay meel dhexaad ay tahay, sida qaalibka ahna guga iyo deerta roobka waa ay ka da'aan, taasina waxay ka dhigan tahay dhul dalsan oo daaqa hodan ku ah kuna wanaagsan xoolaha aan nugulka aysan ku jirin. dooxo waa dhulka togaga ay maraan ee u dhexeeya buuraha iyo oogo. dooxa waa ay ku yar yihiin gobollada koonfurta, balse waxay ku badan yihiin gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe. dooxa uga caansan waxaa lagu tilmaamaa kan nugaal iyo dooxa orori, waxayna ku wanaagsan yihiin guud ahaanba dhaqashada xoolaha, gaar ahaan nugulka u baahan biyo joogto ah. hawd waa dhulka leh ciidda cas, waxaana ka baxa geedaha qodaxda leh. goobaha qaar waa kayn jiq ah, roobab xaddi leh ayaa ka da'a, barkadaha xareedda lagu keediya mooye biyaha kale waa ku gabaabsi, sababtoo ah xurbinta riigagga mooye way adag tahay in laga qodo ceel gacmeed. xilliyada barwaaqadana waxaa laga heli karaa baad barqadharaga, waana dalsan xooluhu ay ku tartamaan walow nugulku uu ku yar yahay. dhoobey waa dhulka ku meersan jiinka webiyada, caradiisuna waa dhooqa madow oo sida carada cad ama carada cas degdeg biyaha uguma gurtaan, oo in muddo ah waa dhooqo qoyan. xilliga roobabka ay buuxdhaafiyaan biyaha webiga ee beriga ay ku fatahaan, waxaa dhulka dhoobeyda ka dhasha tixsiga nafleyda ay waxyeelaya, kaas oo gobollada looga yaqaan 3 magac oo kala duwan: gendi, riibi iyo nuug, wuxuuna sababaa cudur halis ku ah xoolaha nool. waxaa kaloo ka dhasha noolaha kaneecada loo yaqaan anopheles, kaas oo faafisa cudurka duumada. dulinka ama qaniinka waxyeeleeya duunyada iyo duumada dadka disha darteed, taranka iyo caafimaadka nafleyda kuma wanaagsana dhulka dhoobleyda, waxayse hodan ay ku tahay kuna habboon tahay wax soo saarka tacabka beeraha. dooy waa dhul gabiib ah oo lagu matali karo hawd siloon, wuxuu ku yaalaa gobolka Jubbada Sare. muuqaal ahaan waa dhul leh ciid cas oo kayn dhirtu ay ku badan tahay, geedahana ay qodax badan ay ka baxaan. guud ahaan waa dhul dalsan oo aanan lahayn qaniin xoolaha ku rida cudurka cashiga. waxa uu ku wanaagsan yahay dhaqashada xoolaha siiba geela iyo riyaha. intaasi ayuu barnaamijkeena maanta inoogu egyahay. waa anigoo ah Xasan Cusmaan Xaaji, kuna soo dhowow Fagaare Media. hiraal cusub.